waxaan odhan karaa Soomaalidu gacanta gumaysiga inay si dhab ugu dhacdo waxa ka ilaaliyay bacda Allah subhanahu wa ta'ala geel way dadka beeralayda ma guuraan saadaradeed hadii la qabsado waa la qabsaday weeyaan laakiin ninka geel jiraahi biyahana bil buu ka qaadi karaa geeliisu soddon maalmood iyo ka badan buu geeliisu qaadi karaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu taagan baa awr u yimid neef geela markaasuu nabigu yidhi neefkani wuu ashtakoonaya waxaanu ka ashtakoonayaa ciddii haysatay siday ula dhaqantay waxay ahayd in si guud looga fakaro xoolaha iyo dhaqashadooda waa sababo kale daraadood waan idinka habsaamay haddaan imi wixii laga hadlay horena lama soconin calaa kulli geelu dee Soomaalidu xoola kuma jiray hore u tiri qur'aankana ilaahay subxaanahu wa tacaala ayadda halkaa ku qoran afalaa yanduruuna ila libili kayfa khuliqat ayadda haddaynu sirnaan sharxa waqti aad u tiro badan bay u baahantahay iyo maanta culumta cusub ee dunidu waxay ka sheegayso waa shay runtii culamada ka warramta al-i'jaaz al-ilmi fi al-qur'aan masaa'ilka ka warramay ka mid tahay waayo geela qaab dhismeedka ilaahay u dhisay ishiisu baalasha ay leedahay dhegtiisu qaabkay u samaysan tahay faruurtiisu qaabkay u jeexan tahay calooshiisu say u samaysan tahay kuruskiisa iyo shaqada uu qabto kaadidiisa iyo nawciyaadkeeda caanihiisa iyo nawciyaadkeeda wax aad u tiro badan bay ka warramaan hadda culamadan dambe markay ka warramayaan al-i'jaaz al-ilmi fi al-qur'aan innagana wuxuu inoo ahaa laf dhabarta dhaqaale waxaan odhan karaa Soomaalidu gacanta gumaysiga inay si dhab ugu dhacdo waxa ka ilaaliyay bacda Allah subhanahu wa ta'ala geel way dadka beeralayda ma guuraan saadaradeed hadii la qabsado waa la qabsaday weeyaan laakiin ninka geel jiraahi biyahana bil buu ka qaadi karaa geeliisu soddon maalmood iyo ka badan buu geeliisu qaadi karaa meeshu doonana wuu guuri karaa dee waqooyigan aynu joogno marna biyuhu waxay ahaayeen kuwan Hargeysa iyo wixii la siman Oodweyne Burco Beer Cayn Laascaanood safkaasi wixii la siman biyo kale ma jirin biyo ku xigaanada haradigeed bay ahaayeen walwal iyo wardheer iyo wixii ku siman inta ka dhaxlaba ninka geel jiray socon jiray taas waxay sababtay in dadkan la gumaysan kari waayo marka waxaan u arkaa geelu inuu ka mid yahay waxyaabihii dadkan ama in la kristaamay ama si dhib loo gumaysto ama ninka geel jira iyo santaagiisu waxay keensatay inuu gaalku uu talin kari waayo marka waxaan u arkaa gumaysiga waxyaabo inuu kaga baxnay inuu yahay laakiin wadankii sidaynu wada ognahay waa xaalufay intaajkeena ama wax soo saarkeena uu sii yaraanaya geela dhaqashadiisu way sii lumaysaa waxay ahayd in si guud looga fakaro xoolaha iyo dhaqashadooda tusaale kooban haddaan tilmaamo maalan reer galbeedka nimankan la yidhaahdo lo' bay dhaqdaan iyo doofaar waxa u badan ay dhaqdaan waa labadaasi lo'dooda wax dheeraada laguma samaynin waa la xushay uun xulasho neefkii caana badnaa baa lasii xulay ilaa ay gaadhay neef xoolo lagu xisaabtamo inta brotiina la siiyey intuu dhiiqay laysu eego imisaad siisay imisuusa soo dhiiqay sidii warshadda mashiinka loola xisaabtamo efficiencygiisa aynu aragno sac feedhe engegan leh candhaduna intaa leeg tahay haddana caanaa u badan dhiiqaya waayo waa neef xooloo la xushay xulashadooda waxay gaadhsiiyeen xad maanta galbeed oo dhan 100 dibiyo qura ayaa lo'da rimiya bas waxa xoolo la haystay galbeed degan oo dhan waa 100 dibi 100 dibi sanadkii mar baa la xulaa dabeetana iyagu dibiga manidiisa kala iibsadaan inaga shariicada kuma banaana in la iibiyo xayawaanka manidiisa kuma banaana laakiin iyagu 100 dibi ay soo sooceen oo si gaara loo soocay Soomaalida hore awrkay waxoogaa tilmaami jirtay noocyadka awrka geela lagu darayaa uu yahay iyagu waxay loo haystaan oo dhan bay ku tala galeen inay 100 dibo qura laga soo saaro 100 dibiyo qura manidoodu inuu noqdo waxa lagu talaalayo loo waxa galbeed joogto oo dhan
taasaa waxay keentay inay laba kala soocaan ah xoolaha qalliin loogu talagalay iyo xoolaha loogu talagalay maalis. innaga weli waa gabnadii iyo tii badinaysay iyo awrkii iyo wixii isku jiraan. marka waxaynu u baahannahay haddii geel dhaqasho reer magaalku bilaabay dowladda iyo raggan geela dhaqayaaba inay ka fakeraan sidii loo horumarin lahaa baadiyaheena. dadka u baahan inaynu aqoon u gudbinno, qaab dhaqasho cusub u gudbinno oo waxtar leh waa dadkaasi. ka labaad ee aan rabo inaan idin tilmaamnana waxa weeyaan xoolaha dhaqashadooda markaynu ka warramayno sharcigu wixii u waajibiyeyna waa inaynu ilaalinaa. ay ugu horrayso neefka daryeelkiisa iyo neefkan xoolihii xuquuq buu leeyahay in xuquuqdiisa la ilaaliyo. nabiga calayhi salaatu wasalaam oo taagan baa awr u yimid neef geela, markaasuu nebigu yidhi neefkani wuu ashtakoonayaa. waxaanu ka ashtakoonayaa ciddii haysatay siday ula dhaqantay. idan xoolo xuquuq bay leeyihiin, manafacadna way leeyihiin. xuquuqdoodana inaynu dadka barro, waxa neefkan la rabo in la siiyo ama se la ilaaliyo ama saa loo dhaqanayo waa xuquuq aakhire lagu weydiinaya inaynu ku talagalno. ka labaadaan tilmaamayaa sina wuxuu yahay shareecaduna dee xuquuq bay ku waajibisay. kollay soomaalidii geela dhaqan jirtay zakada oo aad bay ugu yarayd. zakaduna waa waxa wax ku barakoobaa oo ilaahay subxaanahu watacaala inoo tilmaamay qur-aanka waxa laynoogu barakeeya inay tahay. zakadana geellayda siiba soomaaliyeed in si xooga loogu sharxo oo aada looga warramo. warkaygu ma badinayo maadaama dadku in badan fadhiyey anna aan wakhti dambe imi. wuxuu ku kooban yahay waa mashruuca xooluhu, waa intaay ama waa wax soo saarka quree dhabti aynu leenahay. waddankan lacag waxa ka soo gala inta xoolee la dhoofiyo iyo inta meelaha xawaaladee la soo diro. xawaalada da'yarta dambe markay korto odayadii idinka tegiyo salaamii idinka tegunba xawaalada soo diraya. da'yartu markay korto iminkana ay shaqada bilaabeen xawaalada iyagu kuma jiraan, kanna dalkooda uma arkaan. waa xaqiiqada jirta, waanay go'aysaa wakhti aan sii dheerayn. sidaa awgeed waxa rasmiga aynu leenahay industry kale ma lihin, waa xoolo. waxay ahayd dowladda iyo shacabka iyo maalqabeenkeenna iyo tujaarteennuba inay investmentka ugu badan geliyaan xoolahaasi iyo sidaynu horumari lahay. qofka reer miyiga ah ee ama adhe haysta ama lo haysta ama geel haysta sidii uu horumari lahaa ayuunbay ku xidhantahay wax badan oo ummaddan horumarkeedii. marka hadduu maalqabeen yahay iyo hadduu dowladda yahay iyo hadduu yahay aqoon-yahankeennaba. aqoon-yahankeennu wixii galbeed yaallay inuu soo warido uma baahnin. waxaan u baahanay wixii waddankeenna yaallay inuu horumariyo. wixii waddankan yaallay in la horumarin karo, xooluhuna ay ugu muhiimsan yihiin. warkayga markaa waxaan ku soo koobayaa, waxaan is leeyahay dee rag badan oo aqoon-yahana baa jooga. geela iyo dhaqaalu inoogu fadhiyo, caana boodhaha iyo dhibtu inugu hayo, caafimaadka iyo geela iyo wixii inoogu fadhiyo, iyo caanahan aynu dabadda ka keenno oo aan qaar badaniba ahayn wax bini aadam la siiyo iyo dhibta inugu hayaan. waxa in hore looga warramaan wada rajaynaya. waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan markaa geelaas aynu u dhaqan lahayn iyo caano nadiif ah oo aan cagadan dhibta ah ku jirin. waxaan sidhi caano boodhaha islaanta ka jooji oo yaa carruurta lagaa siinin. caano xoolaad baan daydayana siiyo oo siiyo. waxay ka bixi waayeen shuban iyo wax kale. sababtuna waxa weeyaan in bakteeriyaadkan tirada badan leh iyo weelkan lagu sido inta nadiifteedee dadkan dambe geela dhaqaana kuma filla waddanka oo maaha wax magaaladoo dhan ku wada filan maaha. taasi waxay sababaysaa markaa inaynu intan la dhaqayo qura aynan ka fakerin waddanka oo dhan sidaynu horumarin lahayn. geel iyo adhi iyo lo'ba waxa jooga ayuunbaa muhiima. ururkanna waxaan leeyahay allah idin gargaaro. dadka dhaqaalaha lana waxaan leeyahay wax la qabto oo invest garaysta iyo investmentkeenu noqon in trade alaab la keeno oo dabeetana China lacagta la siiyeen kan baa u baahan inaynu invest garayno oo wixii uu u baahan yahay oo dhan
dowladda iyo dadka waxay sababay inay investment-ka u badiyaan wixii inoo ahaa hanti. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.